Taliye ka tirsan ciidamada Somalilan ee Taleex ku sugan ayaa maanta la dilay. Somalilan ayaa ciidamada maamulka Puntland ku eedeysay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii ciidamada Somalilan ee Taleex gaashaanle sare Salebaan Cabdi Caatay, kaasoo Somalilan ay sheegtay in lagu dilay weerar jidgooyo ah oo Puntland ay ku qaaday wafdi uu ka mid ahaa taliyaha. Wasiirka biyaha Somalilan Salebaan Cali Koore oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay weerar ay sidoo kale dhaawacyo culus gaarsiiyeen mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay guddoomiyihii degmada Taleex. Wasiirka wuxuu sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaano u dhow Taleex. Dhageystayaal, maamulka Puntland ayaanan wax war ah ka soo saarin dilka taliyaha ciidamada Somalilan ee Taleex. Waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Laascaano Cabdikariin Olol. Cabdikariin, galab wanaagsan. galab wanaagsan Bukhari. Bal faahfaahin naga sii weerarkaasi la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow Taleex ee lagu dilay taliyaha ka tirsanaa ciidanka Somalilan. Bukhari, aad baad umahadsan tahay. Sida warbaahinta u sheegay magaalada Laascaano waxaa soo gaaray hadda muddo laga joogo 2 saacadood gudoomiyihii degmada Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed Jaamac. Isbitaalka guud ee magaalada Laascaano waxaa la soo gaarsiiyey dhaawaca Salebaan Xaaji Deriye Food oo ah maayirkii degmada Taleex. xilli aan halkaasi kula hadalay gudoomiye Cabdirashiid wuxuu noo sheegay xalay abaarkoodii markay ahayd inay ka yimaadeen degmada Taleex. Sida uu isagu noo xaqiijiyey deegaanka Taleex markay ka yimaadeenna waxa ay la kulmeen dhacdo oo uu sheegay in halkaasi ay ku qabsatay deegaanka ay ciidamada Puntland ay ka degan yihiin. Waa gartay. Marka maxaa dhacay ayuu yiri gudoomiyaha kadib sidee wax u dhaceen? Gudoomiyaha wuxuu noo xaqiijiyey inay 2 gaari ahaayeen. gaarina uu watay taliyaha ay wada saaraayeen maayirka degmada Taleex Salebaan Xaaji Deriye Food. midna uu isagu saaraa. waxa uu sheegay 2 gaari inay kala horeeyeen, gaariga taliyuhu inuu ka horeeyey, gaarigu isagu saaraana uu ka dambeeyey. kadib wuxuu yiri gaariga aan watay ayaa waxaa ku timid cilad. markay ciladu ku dhacdayna indhaha ayaa baktiyay. intaan gaariga hagaajisanayay baan waxaan maqlay shil dhacay oo qaabku u dhacay. markaas wuxuu yiri xilli habeenimo ahayd. markaas isagu ma uu faahfaahin. markii dambena waxaan xaqiijinay buu yiri in uu geeriyooday taliyihii ciidanka Somalilan ee degmada Taleex qayb ka mid ah oo degan. Waa gartay. marka ma weerar ayaa qabsaday buu yiri taliyaha kolonyadaas uu la socday? sheegashada gudoomiyaha degmada Taleex uu sheegay waxa uu sheegay isagu uu xaqiijiyay jidgooyo loo dhigtay. xaqiijinta uu xaqiijiyo oo cid inaga si rasmi ah uga xaqiijisay aan jirin dhacdadaas maadaama ay ahayd xilli habeenimada deegaankana laga hurday. waxay noqotay hadalka uu gudoomiyuhu sheegay ah in jidgooyo loo dhigtay. dhanka kale isku dayo xidhiidh aanu samaynay ilaa haatan waan raadinayna siday deegaankaasi wax uga dhaceen. Degmada Taleex yaa maamula Somaliland mise Puntland? ciidamada waxaa jooga degmada Taleex ciidamo ka tirsan Somaliland oo taabacsan oo dadka deegaanka ah. gudoomiyuhuna wuxuu dhawaan ka tegay magaalada Laascaano iyo sarkaalkan kale ee shilka gaari halkaas ku dhintay. xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha degmada Taleex waa sidee ahayd? Salebaan Xaaji Deriye Food gudoomiyaha degmada Taleex mar dhaweed ayaa laga qaaday isbitaalka guud ee magaalada Laascaano waxaana loo qaaday magaalada Hargeysa. dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu u baahan yahay baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo. gudoomiyaha laftigiisu barasaafka gobolka Xaysimo isagu leeyahay wax dhibaato oo soo gaaray ma jiro. deegaankan hadda aad buu degan yahay. dhimashadii sarkaalka sare ciidanka Somaliland intayna waxa la soo gaarsiiyay magaalada Laascaano si ay noo xaqiijiyeen eheladiisa. waa mahadsantahay Cabdikariin. kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Laascaano Cabdikariin Olol oo khadka si